بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn awadu waa ay karkaraysaa xaajada lix qodob ayaan ka hadli doonaa inta aan live kan ku jirno barnaamijka Djibouti Baydhabo Mudug Villa Soomaaliya dagaalkii Basra iyo waliba waxaan ka hadli doonaa natiijadii safarkii Eritrea ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Cooperation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee sarasabaynaya geeska Afrika dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh mudanayaal iyo marweyn magaalada Baydhabo ayaan ku hormaraynaa magaalada Baydhabo ee gobolka Mayland qofkii afaraad oo haweenay dila ayaa loo dhameeyay qisaas taasi waa cadaaladda sidoo kale laba askari ayaa maanta waxay isku xabadeeyeen suuqa jaadka ah ee magaalada Baydhabo kadibna mid ayaa la dhaawacay midna waxba ma gaarin balse xabadii ay isku tuureen waxa ku dhimatay haweenay shacab ahayd oo meeshaasi hilib macnii beecsanaysay kadibna labadii askari waxa lagu yiri waxa rabteen inay isdishaan Soomaan ha okay mar hadaa rabteen inay isdishaan qof rayid aad disheen qofka rayidka ah iyo labadii naasi saddexdiini britole aakhira wada aadaysaan haweenayda hadda macnii iyadoo meeday taala labada askari iyaguna qabrigooda habeenimo la qoday britole marka saddexdooda waa isla aasaya sida dawladda Mayland cadaaladeedu ay tahay Baydhabo waanu ka gudbaynaa diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo helicopter ah ayaa baxday maantay waxay tagtay meel la yiraahdo Mudug oo galmudug ka tirsan diyaaraddaasi 8 qof baa saarnay meel u dhow xiin dheer ama xiin dheer meel la yiraahdo haday jirto meel u dhow oo xaabo miya saxaabooy soo raadiya diyaaraddaasi meeshaas ay ku degatay shaki weyn baa ka dhashay waxaa la tilmaamay in duuliyii uu baxsaday la yiri laba kale inay baxsadeen in la sheegay diyaaraddaasi si aanay shabaab intay u gacan gasho aan loogu dhibaataynin dawladda Soomaaliya iyo ma arkaysa international community-ga diyaarad ayay direen qoliyaha taageera dawladda Soomaaliya ee hawada ka taageera si ay u gubaan diyaaraddaasi markii dambe waxaa soo dhex galay Mahad Salaad oo uu sheegay in diyaaraddaasi isaga uu diray isla markaana sirdoon ay ahaayeen ciidamo meeshaasi jooga oo dawladda ah in macnaheedu kaalmo ay siinaysay balse laakiin maamulka galmudug ee uu hogaaminayay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaa la sheegay in suugag uu u diyaarsaday ugu dambeyntiina diyaaraddaasi raadkeeda ilaa hadda in la lacyahay horaan bay ahayd mar diyaarad sidaan oo kala ah 8 nin iyo duuliyaha macnii qubaro qaraxyada qaabilsan ay ka degtay meeshaasi duuliyii hore laga dilay nimankii kalena ma arkaysa ay duurka galeen oo lagu soo dhaweeyay culimada lugaysa meesha ay ku soo dhaweysay marka hawshan idin sheegaynay abaabulkan idin sheegaynay ayaa wali soconaya oo dalka waxa weeye xaaladiisu ma degana waa la kala adeeganayaa waa la isbaabi'inayaa oo waxa weeye gorilla war dagaalkii ku dhufo oo ka dhaqa ee ay doonayeen Xasan groupka macnihii villada la jooga damul jadiid inay dalkan geliyaan ayaa muuqanaysa waan ka gudbi doonaa ma arkaysa diyaaraddaasi wixii ku soo kordhana waan isla joognaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo safarka Eritrea ayaanu aadi doonaa laakiin safarka Eritrea intaanan aadin
natiijadiisi waxaanu aadi doonaa dagaal maantay lagu baaba'ay oo ka dhacay meesha loo yaqaano Basra halkii Farxaan Qaroole taliyihii qaybta balayska gobolka Banaadir lagu shirqoolay iyo saraakiil fara badan ayaa maantay macnii iyaduna lagu go'ay meeshaasi waxa ku yaala maxkamadaha al-shabaab baa ku yaala oo magaalada Muqdisho dadka inta loo yeero meeshaasi xukunka lagu gooyo oo lagu kala saaro waxaana dhigi karnaa stronghold of al-shabaab macnii waa saldhig weyn oo al-shabaab ay leeyihiin meesha la yiraahdo Basra oo ku taala gobolka Shabeellada Hoose isla markaana Shabeellada Dhexe daris la ah haddaba goor galabtii ay ku aadan tahay Soomaaliya ayaa mahad salaad iyo xukuumadda damul jadiid waxay yiraahdeen weerar hal la qaado waxaan weerar ku qaadaynaa al-shabaab weerar hal lagu qaadaya weerar qaadaya waxa la yiri weerarka waxa hogaamin doona niman habar gidir ah iyo niman abgaal ah laakiin ciidanka ugu badan waa Biyamal iyo Digil iyo Mirifle waa la ururiyay guutadii 14 Oktoobar aad ogeydeen oo Shabeellada Hoose ka dhisnayd oo Biyamalka iyo Digil iyo Mirifle u badnaa horaanna kuliyada jaalisiyaad loogu xasuuqay aad ogeydeen cid wax la warsadayna aan jirin intoo la soo ururiyay la isku habeeyay ayaa la yiri howlgal baan qaadaynaa labadan boqol baa dadkii waashay haddaba ciidankii goradda ayaa loo geliyay markii goradda loo geliyay hal askari oo shabaab way soo waayeen waxba lama aysan kulmin galabta markay aadeen meesha laakiin markay isdhaheen ka soo baxa meeshan waxba ma joogo ayaa afarta dhinac rasaas looga keenay ciidamadii meeshaasi tagay dhigta ayaa dhiiga loo daray hubkiina waa laga furtay meydadkana waa cadad dhaafay waa ay ku go'een Biyamal ku dhintay Digil iyo Mirifle ku dhintay saraakiishii hogaaminaysay ee habar gidir abgaalna way ku dhamaadeen idaacadaha Soomaaliya in la tabiyo lama ogolo warkaasi cidii lagu maqlaana waa dil magaalada Muqdisho maantay dagaalkaasi cid ka hadli kartaa ma jirto waxa weeye ciidanka in meeshaasi lagu laayo ayaa loogu tala galay hubkiina waa laga furtay ciidanka Soomaaliyeed waana la laayay waxaad moodaa inaysan dhageysan marka aan u sheegayno war labadan way isla shaqeeyaan damul jadiid iyo al-shabaab way isla shaqeeyaan war Soomaaliyay ha ku baabi'ina war meeshan dawladnimo ma taalo dhagalay wax maqal dadka hadda maba ku dhageysanayaan moogta ha $200 baa macnaheedu miirqaad ku noqotay si kasto ay ahaataba waxa weeye saraakiil oo xataa wacaysla ah macallin dhiblaawe ay ka mid ka yihiin ayaa ku dhintay sida xaqiiqada ah waxa war isoo gaaraya hadda dadkii ciidanka macnaheedu dabkaasi ku shubay ninka la yiraahdo Nuur Xayr oo sacad u dhashay oo reer Jalaf ah 14 sano ku dhawaad degmada Afgooye xaaraanta ku haysta gabadha garre ee Digil iyo Miriflana macnaheedu cunug ka dhalay rakaatada ku haysta Nuurta Samow oo hadda ay kala tageen oo 13 isbaare ee Afgooye taal macnaheedu isagu ay u taalo warka wuxuu sheegayaa in Nuur Xayr xataa uu ku dhintay dagaalkaasi isagoo doonaya in ciidamadan xaabo uu ku shubo ma arkaysa kadibna uga soo baxo in rasaasta ay haleeshay aniga ma ku dhahayo macallinka lugeeya 100% wuu dhintay ku dhimaayo laakiin sida la sheegayo ku baxay maantay isagoo macnaheedu dabka ku celcelinaya ciidamada qaranka Soomaaliya sidaas ayaa waan arkaa fayruskiina waan arkaa si fiican aan u arkaa hadalka idin dhibaayo waan u jeedaa hadda ma fahmaysaa cawada way culus tahay way sal dheer tahay oo meel fog baa laga sanceeyaa way cawada way culus tahay aan ku dhahay ma sahlana cawada marka dagaalkaas isaga waa lagu go'ay ma arkayse dad fara badan baa ku dhamaaday ciidamadu way ku dhamaadeen markay ciidanka la laayay oo ma arkayse ay ku baaba'een markaas kadib ayay diyaarad dalbadeen si loo marin habaabiyo dadka diyaaradiina markay dalbadeen damul jadiid oo ay dhaheen Basrahana loo duqeeyo ciidanka inta badbaaday oo rabay inay soo fakadaan ayuun baa haddana la duqeeyay bashde marka damul jadiid hadaa u shaqeynaysid sidaas ay ku dilayaan Basra wixii ka dhacay
yaabka taagan waan ka gudbaynaa waxaan aadi doonaa Eritrea baydhabo waan aragnay mudug waan aragnay diyaaradii dagaalka waan aragnay Basra waxaan isla aadi doonaa Eritrea bila Soomaaliya iyo Djibouti noo haray casharkeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa tii Eritrea uu aaday haddana uu soo noqday caawa safarkiisu wuxuu macnii safarkiisi berri ama caawa inuu soo noqday ahay caawada waa uu soo noqday hadda villa Soomaaliya jooga Xasan Sheekh Maxamuud waayahay muxuu natiijo ah oo la soo guriya noqday waan ognahay inuu gondaha qabsaday siyaas afwarqigii shalay uu caynayay Eritrea maxay noo tartay u lahaa haddana inuu gondaha qabsaday waan u jeednay laakiin muxuu guulu soo gaaray waad aragteen isagoo macnii xaafadaha Asmara la wareejinayo oo ma arkaysa meelaha la tustusaayo waad aragteen laakiin natiijada safarkiisi qabsa hadaba madaxweynaha Soomaaliya laba shay baa ugu weynaa dalabkiisi haddii aan ku dhaho saddexna dambi igu ma ahan laakiin way is soo galayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka dalbaday siyaas afwarqi marka ugu horeysa in ciidamo loo tababaro marka labaad in ciidamo tiradoodu ay gaarayso 1500 askari la siiyo oo u baahan yahay degdeg ugu baahan yahay ciidamada jooga Eritrea ee Soomaalida ah qodobka saddexaad wuxuu dalbaday hub ayuu dalbaday in lagu taageero dawladdiisa hub islaam allah hubkii horeba beelaha kala qaatay Xasan Sheekh Maxamuud soo wax ku wada kow horta dalabka ciidamada oo dalbaday iyo dalabka tababar in la siiyo iyo hubka basharuuda lagu xiray waxa lagu yiri hubka aadna weydiisatay iyo ciidamada aadna weydiisatay iyo tababarka ciidanka hadda Soomaaliya inta laga soo qaado Eritrea lagu tababarayo aadna weydiisatay waxba ka horeeya waxa ka horeeya ciidan aan anagu tababarnay waqti iyo qarash aan gelinay ayaa jira oo adiga farta aan ka saarnay oo dawladii farmaajo ay noo keentay laakiin adi aan ku dhibnay adoo yiri ciidanka waa la laayay maqalay ka dagaalameen waa ku tusnay fartana waa ka saarnay waxaan ka rabnaa ciidamadaasi meesha ay ku dambeeyaan inaan noo sheegtid marka ciidamadaasi meesha ay ku dambeeyaan aan noo sheegtid wixii harayna aan na tustid oo aan kula xisaabtanno isla xisaabtan aad ogolaatid markaasi kadib waxaan diyaar u nahay in aan ciidan ku tababarno waxaan diyaar u nahay ciidanka aan weydiisatay inaan ku siino waxaan diyaar u nahay hubkana inaan ku siino sidaas lagu yiri madaxweynaheena Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud natiijada safarka waad haysaa يعني dhulka ayaa lala soo jaray wuxuu yiri marka waxaan diyaarin doonaa ma arkaysa macnaheedu shaqada ay dirteen waan idin tusayaa ciidamadii aad tababarteen oo gacanta iga saarteen macnaheedu meesha aan mariyay ana xisaab celin idin siin doona sidaas uu ku soo noqday uu yimaaday villa Soomaaliya markuu yimaaday now hadda aan kula hadlaayo wuxuu u yeeray dhamaan ma arkaysa inta ka agdhow wuxuu yiri ciidamo cusub oo degdegan u baahanahay in la isoo qoro kuwa hadda jooga ma ahan qaranka ciidan cusub baan rabaa in la isoo qoro wuxuu leeyahay hadda lambar 50 iyo aagaasi 1800 oo askari ha la iga keeno magaalada Muqdisho wuxuu yiri ciidamo degdeg ah la ii ururiyo dhalinyarada macnii shaqo la'aanta ah ciidan ha loo diiwaan geliyo maamul goboleedyadu wuxuu yiri maamul kasta ciidan baan ka rabaa oo cusub oo aan u diraayo macnii Eritrea ciidamadii ma arkaysa Eritrea la soo tababarayna la isoo xaadiriyo taliyaashu saas ku leeyahay wuxuu rabaa inuu dhex istaago kaamirad uu iska duubo waa NGO le markaas kadibna in siyaas afwarqi oo u diru doonaya uu yiraahdo waa kan ciidamadii aad ii dhiibtay qaarna dagaal bay ku dhinteen iyagoo dalka xoreynaya kuwa kalena waa kuwan horta Xasan Sheekh Maxamuud shaqadaas uu ku jiraa oo ma arkaysa ciidanka hadda la gooyay ma ahna ciidan cusub ayaa cawada uu soo dhajiyay hal ay qoro villa Soomaaliya
villa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya caaw markuu yimaaday waxa uu la yimaaday waxa la socday laba nin oo masaari ah nin waa sirdoon sare oo dalka Masar ah ninna waxa weeye gacan yarayaasha madaxweynaha dalka Masaarida Abdel Fattah Sisi gacan yarayaashiisa mid kamid ah ayaa la socday madaxweynaha waa uu wareersan yahay villa Soomaaliya yimaaday shir buu leeyahay caawa oo waatan aan ku sheegay ciidamo degdeg ah la ii qoro ciidamadiina la soo ururiyo taagan yahay aan ku dhahay aadan madoobe iyo isaguna salaan iyo kala tagay gudoomiye aadan madoobe iyo xasan sheekh maxamuud mariye dhiig lay kala furteen si kale kuma taqaanide aadan madoobe cawada hadda aan kula hadlaayo wax yar kor wuxuu la fadhiyay safiirka qadar uu la fadhiyay aadan wuxuu iska soo jaray dastuurkan ma shaqeynayo yiri wax shaqeynaayo ma in wax laga bedelo villa Soomaaliya annaga afaareena ka baxdo dastuurka hadii la bedelayo iyo hadaan la bedelaynin shaqadiisu baarlamaanka ay u taalaa xasan sheekh maxamuud iyo villa Soomaaliya dastuurka uma taalo iska soo jaray aadan madoobe tani waxay ka dambeysay kadib markii habeen hore Faarax Cabduqaadir oo damul jadiid ah oo bariyahan qadar u dhawaa iyo Cabduqaadir Cosoble oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ah iyo jumhuurtaasi ay farmaajo u tageen habeenkii ka dambeeyana aadan madoobe iyo qadar iyo farmaajo ay kulan ku qaateen guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awadana qadariyiintu ay la fadhiyaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe isla markaana xalay shir ay wada galeen aadan madoobe iyo ma arkaysa macnihii golaha wasiirada ee Maryland ee dawladda federaal ku matala iyo xildhibaano ka tirsan Abdicasiis lafta gareenna uu suum soo galay isla markaana ay ku heshiiyeen in doorasho ay qabtaan bacda Ramadaan doorashadaasoo nin hawiye ah aanu farafarayn karin shaqana aanu ku lahayn hawadana la xidho dhulka la xidho oo ma arkaysa xasan sheekh maxamuud iyo hawiyihiisi la iska celiyo labada gudoomiye iyo aadan madoobe sidoo kale shir ayay awada leeyihiin waa Cabdi Xaashi iyo ku-xigeenkiisi iyo ma arkaysa aadan madoobe yani labada aqal gudoomiyaashooda maxay ka shirayaan arinta dastuurka ay ka shirayaan xasan sheekh maxamuud lacag baa hore looga qaatay hala ii marsiyo qarjajac uu soo dhajiyay laakiin baarlamaanka Soomaaliya maantay firimbi baan wadanaa markay lahaayeen tii dheerayd baan dhigaynaa iyo aadan madoobe oo hadda soo jeestay iyo xasan oo wareersan oo dastuurkan inaan meel mariyaan rabaa xitaa social mediaha macnaheedu la igu ololeeyo xasan xisaabtiisa meesha ay marayso oo wariyayaashii xataa macnaheedu hadalka u diiday waa wax isle marka ninkii aadan madoobe ahaa 180 degree ayuu ku soo wareegsaday xasan sheekh maxamuud xasan wuxuu leeyahay lacagta ay iga qaadatay aadan madoobe isii waxaad lacagta iga qaadatay dastuurka inaan dhameystiro aadan madoobe wuxuu yiri lacagta ma arkaysa maadaa soo shaqaystay xagee ka keentay ma barafaad macnii ka soo shaqaysay ma benziinkii islaantaada ay gadaysay ka keentay lacagta waa lacag Soomaaliyeed oo naga dhaxaysa adigu haddaad madaxweyne tahay anigana madaxweyne ku xigeenaan ahay ahna gudoonka baarlamaanka Soomaaliya adigu beesada dawladda ina qaadatid annagana aan macnay cidla aan ka joogno kitaabkee ku qoran buu yiri aadan madoobe horta ninkii aadan madoobe ahaa ee xasan sheekh maxamuud dastuurka meeshaasu macnay maraya marka aadan madoobe waxaad moodaa in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo farmaajo inuu raacay baad moodaa asalkiisana Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu saaxiib la ahaa marka maxaa iga qaadi kartaa iyo maxaa iga tari kartaa xisaabta meeshaas ay maraysaa aadan madoobe waxa lagu yiri adiga argagixisada la shaqaysaa argagixisa idinka la shaqeeyo yiri adinka ayaana macnaheedu shabaab ah adinka ayaa meesha aad joogtaan argagixisadu ay kuma dhadhashaa xisaabta marka waxa weeye adinka shabaab ah iyo adinka shabaab ah horta in la isnabo oo macnaheedu la isduqeeyo ayay maraysaa ka damul jadiid villa Soomaaliya checkpointyada madaxtooyada soo gala horta ciidamo ayuu ku daadiyay xasan sheekh maxamuud cabsidiyaaba haysahe ciidamada uu ku daadiyay oo waa koofiye guduud waa ciidamadii madaxtooyada Soomaaliya ninkii mahad salaad ahaa isagana macnaheedu habar qadiijo ma soo dhaafi kartid baa la yiri laakiin caaw muxuu sameeyay laba baabuur
meesha la yidhahdo isgoyska dabka waa lagu kala cararay hadda adiga nus saac ka hor inta aanan live-ka soo gelin waa lagu kala cararay magaalada muqdisho baabuur macnihii qarax looga shakisan yahay ayaa meesha lagu arkay baa la yidhi dadku way ka kala fiigeen nisadii iyadaaba shabaab noqotay gaariga nis haddaa aragtid qaraxuu wadaa madaxtooyada midda kale ee dhanka wardhiigley waddada ka imaanaysa oo sayidka kusoo dhacaysa checkpointiga koowaad ee madaxtooyada laga galo gaari qaraxa yaalla oo nisa ah hadda aan kula hadlaayo habeen horena waa tii madaxtooyada la weeraray waad ogtihiin oo xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe la weeraray oo ma arkaysa macnihii xasan uu dalbaday commandowska Etoobiyaanka iyo ciidamada admis si kasto ay ahaataba marka baabuurkii ciidamada koofiya casta ee madaxtooyada ayaa ku baxday nimankii nisa waxay yiraahdeen gaarigan annaga leh halkaanu noo oolaanaya mana la taabanaayo mana la wadaayo idinkana uma dhawaan kartaan faraha ka qaada hadda meeshaasi xabad inay ka dhacdo ayay u dhowdahay mahad salaad ayaa isaguna damcay inuu soo gurmado haddii la yiraahdo baabuur qaraxa la qabtay durba inuu la wareego damcaa uu yiraahdo anaa baaraaye dibna looma arko way isla shaqaystaan laakiin mahad salaad koofiya guduudii baa waxay ku yiraahdeen haddaad ka soo baxdid habar qadiijo malagaagaa galay xaruntaada ku jir inta lagugu talinaayo marka horta xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad meel xun bay kala gaadhay waatan hadda abgaal iyo habar gidir ay u kala safteen bahasha sheekadu waa hadha xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad way isla shaqaynayeen ciidamada in la laayo isku dhanbay ka ahaayeen laakiin qodobkan SYL xisaabta waxa weey way isku qabteen oo anaaba macnihii ii soo dusisay miya xisaabta meeshaasay maraysaa tabeelaha sheekh ibraahim ay dhahaan iyadana qaraxa ka dhacay qaraxa goormuu dhacaya shirkadda beeka la leeyahay caawa markii korontada ay damisay ayuu qaraxa hore kaga dhacay rasaasna way dhacday wax banaanka u soo bixi karaana ma jiro dadku way cabsanayaan horta ma arkaysa xaalka magaalada muqdisho waa sidaasi ma aragtay dagaalka ma urisay qaraxa ma sheegi kartid cid hadli kartaa male dagaalkii maanta basra ka dhacay oo ciidamada lagu laayay oo saraakiisha macnihii ay ku dhamaadeen oo digil iyo mirifle uu ku go'ay oo biimaal uu ku go'ay oo lagu gooyay askarteena meesha wiilasheena oo ma arkaysa macnihii saraakiisha abgaal iyo habar gidir ay ku dhinteen iyagoo rabay in ciidankan dabka ay ku shubaan oo haddana diyaarada loo dalbaday oo ciidankii baxsadka la sii laayay shabaabkana sidooda ay u joogjoogaan oo hubkii ay furteen waxaad garanaysaan in ma arkaysa macnihii idaacad ka hadli kartaa aan jirin gudaha oo la yiri ma hadli karaysaan waxna ma sheegi karaysaan shib uskud horta villa Soomaaliya xaalkeeda meeshaasi ayuu marayaa oo sheekadu waa hadha baarlamaanka Soomaaliyana macnihii arrinka ah ansixinta dastuurka way ka hor yimaadeen majority-gooda way diideen waxayna u badan tahay gacmaha in la isla geli doono xataa haddii la meel mariyo xasan sheekh maxamuud meel dastuurkan uu marin doono ama uu kaga shaqaysiin doono haba yaraatee male ha ku hurdin ha ku seexanin laakiin wuxuu raadinayaa hadda in gorilla war uu sameeyo ciidanka Eritrea uu leeyahay hadda la ii tababaro iyo ciidanka 1500 ee askari ee SIS afwarqi uu ka dalbaday ee meesha jooga ee tababarka loo dhameeyay wuxuu rabaa in uu ku weeraro maamul goboleedyada islaam allow nin SYL badbaadi waayay madaxtooyadiisi askarta iyo saraakiisha lagu laynayo oo isaga nafsadiis commandos Ethiopian ah iyo Ugandes iyo admis u yeeranaya oo dabadiisuba ay banaan tahay baa wuxuu rabaa inuu malaayiinta maylan qabsado oo hubaysan 2024 baa wuxuu doonayaa in galmudug uu qabsado uu doonayaa baa wuxuu doonayaa Puntland inuu qabsado uu doonayaa oo iswada shilin aan lagu sheegan baa wuxuu doonayaa inuu laasacaano qabsado baa wuxuu doonayaa inuu qabsado Hiiraan beledweyne baa wuxuu doonayaa inuu Kismaayo qabsado uu doonayaa suuragalna ma marka sidaasi awgeed ciidanka fiiriya ciidan hadda kadib kulaha tare barsat hal bil laba bil kaliya laba bil xataa in lagu gaarsiin yaani bisha shanaad ama bisha lixaad doorashada qoorqoor iyo Axmed Madoobe iyo lafta gareen si ku accident inay u dhacayso ogyahay marka bisha shanaad ama bisha lixaad intaan la gaarin
kulaha 2 bil way ugu badan tahay hal bil kaliya tababar la iisoo siiyo ciidanka cawada marka bilowday ee la qoraayo oo Eritrea uu rabo inuu u diro Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu doonayaa 2005 uu dalbaday iyo ma arkayse macnaheedu kuwa hadda uu dirsaday inta gacanta loo soo geliyo inuu ku weeraro rabaa qoorqoor inuu ku weeraro rabaa lafta gareen inuu ku weeraro rabaa Axmed Madoobe sidaasuu u socdaa Xasan Sheekh Maxamuud laakiin quud aan jirin ayuu u qoryo guranaya sidaasaan dhihi karaya anigu maxaa yeelay ma arkayse macnaheedu waa too late ciidamada isaga laayay hadduu xataa si farsamaysan oo wax ugu qabsan lahaa ciidanka gorgor iyo haramacad iyo ma arkayse duufaan iyo waran iyo markuu caws weynay iyo meel walba ku leynayay xarumaha uu ku shirqoolay Xasan Raali buu ka ahaa askarigii la dilay in la sheegay isaga diidana marka ma arkayse ilka wada jir bay wax ku gooyaan bay tiri ee in bahday meel kaaga taalo waa af kala taag marka Xasan Sheekh Maxamuud hadduu afka saa u kala taagay waxna ma qaban karo waa too late waayahay villa Soomaaliya akhbaarteedu waad haysataa waxaan aadi doonaa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waa lagu dhagan yahay sheekadiisu waa hadha godkiisa biyaha way ugu soo galeen Djiboutiyaanku waa dad aqoon la ilin 2 sano ka hor nin wasiir u ahaa Geelle oo u dhashay beesha Ciise jagada uu ku fadhiyo ay ahayd wasaaradda miisaaniyadda ilaan anagu ma lihin wasiir miisaaniyad moogta laakiin Djibouti waxay leeyihiin wasiir maaliyad iyo wasiir miisaaniyad wasiirka miisaaniyadda dalka Djibouti ninka lagu magacaabo Abdikariin aadan sheer nimay dhahaan ayaa 2 sano wuxuu ku xiran yahay xabsiga gobood inta aan la xirinna jagada ayaa laga qaaday ninkaasi maxaa lagu xiray Geelle muxuu ku xiray waxaa lagu yiri 1 bilyan oo faran lacagta Djibouti ah ayaad liqday kugu maqan eedaas dusha loo saariyay sidii lagu xiray isaga iyo duuliye Fuaad nimay dhahaan ayaa baranbarada la cunteeya muddo 2 sano ayuu ku xiray ninkaasi xabsiga gabood ee ku yaala caasimadda Djibouti ee wadanka Djibouti haddaba ninkaasi markii la xiraayay jagada laga qaadayay lacagtan waa lagu nabay gabar uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelle oo la yiraahdo haybado oo hadda iyadoo nin leh Saadiq John loo dhisay aad ogeydeen ayaa waqtigaasi waxay weydiisatay lacag hotel inaan dhistaan doonaya dhul baan qabsaday hotelkan lacagta aan ku dhisan lahaa isii bay dhahday waa wasiirkii miisaaniyadda moogta wuxuu yiri ma dhiibi karaayo meesha ay ku socoto ma aqaano ma bixin karo ma anigaad ii diidaysaa waay hotelka markaasi ay rabtay inay dhisato waxaa la yiraahdaa Fairmont Hotel ama Hotel Fairmont ayaa la yiraahdaa hotelkaasi lama dhisin macnaheedu kambanigii dhismaha loo xil saaray xoolahan xaaraanta in lagu dhisay markuu ogaaday oo macnaheedu isqa qabsiga gadaal uga dagay oo wasiirkii dhamaan loo xiray loo dhibaateeyay haddaba sirdoonka SMC wuxuu soo ogaaday Djibouti sirdoonkeena jooga yani ninkan markii gabadhaasi uu la dagaalay waxaa loo soo maray dhanka sirdoonka dalka Djibouti ninka haysta oo la yiraahdo Xasan Saciid Qayre oo ku magac dheer Xasan Madoobe oo isagana Ciise u dhashay oo ilmaadeer la ah Ismaaciil Cumar Geelle qaraabe ay yihiin ayaa ninkan feermadiisa isticmaalay wasiirka miisaaniyadda feermadiisa inta la koobiyeeyay ayaa waxaa loo tagay bangiga lacag 1 bilyan oo dollar lagu soo qaatay miskiinkan wasiirka ana dusha laga saarayo oo la nabaya fiiriya lacagtii Geelle iyo saaxiibadiisa soo qaatay markaasay ninkan waxay dheen saaxiib lacaga kugu go'an kugu maqan keen ninkii wuu ashtakooday wuxuu yiri been abuur baa la igu sameeyay bangigii dabagal baan sameeyay
سردون كان نينك لليهي ماركيس حسن مدوبة أيام معني فرمدي دي استعمالي إساقا الله صباحي محكمته معني كدعوودي وحال نينك هلا قبطو إساقا بين أبور سميي فرمدي دي وحقوقات أنو وزيره دعودي صحبه لقى ما سو قادين معني waa laga aamusay waxa lagu yiri saaxiib aday kugu maqantahay markii dambe xilka laga qaaday ileen Soomaalidu waxay tiraadaa darajo kuma daaho nin loo dan leeyahay darajo kuma daaho ilaahay amarkiisi ninkii ma arkaysa xabsiga la galiyay 2 sano markuu ku jiro waxa dacwad laga furay United Nations Commission for Human Rights qolo la yiraahdo oo qaramada midoobay dadka laga gardaran yahay oo xataa ma arkaysa macnaheedu dawladuhu ay ka gardaran yihiin dawladaha dacwad ku oogi kara gilgili kara ayaa ma arkaysa macnaheedu maantay loo gudbiyay dacwadiisa nin la yiraahdo Acton Bernardino oo ah qareenada caalamiga ah fadhigiisu ee dalka Franciscan fadhigiisu yahay ayaa dacwadii gacanta loo galiyay isaga ka shaqeeyay looyarada caalamiga ma aragtay oo international ka sidii kuwii badda Soomaaliya markay dacwadda aan ku jirnay aan qabsanay oo kale ayaa loo qabtay dad dibadda jooga oo Djiboutiyana u qabtay raba Ismaaciil Cumar Geele in ay la degaan iyo dawladiisa diktatoriyada ah Djiboutiyanka ma ogtahay dad aqoon la ku jira ilaahay amarkiisi qareenadii gacanta loo galiyay kiiska waxay soo dulduliyaan muddo 2 sano ah oo qoraaladu ay soo socdaanba maantay gacanta u galiyeen hay'adda qaramada midoobay ee ma arkaysa u qaabilsan yaani dacwadaha noocaasi laanteeda xuquuqul insaanka ah ayaa gacanta loo galiyay maantadan aan kula hadlaayo Faransiiska gacanta loogu qareenada way gudbiyeen Ismaaciil Cumar Geele warqad baa loo dirayaa in 1 or 2 day toddobaad gudihiisa waxa la leeyahay jawaab degdeg aan ka rabnaa sababta aad ku haysatay macnaheedu wasiirkaasi miisaaniyadda oo aad ma arkaysa 2 sano baranbarada aad u siinaysay ilaan kiiskii waa la galay ninkan in sirdoonkii Djibouti uu macnaheedu farmadiisa isticmaalay saxiix lacag ku qaatay haddana la dulmiyay dacwadiisa waxba laga soo qaadi waayay geelle uu ma arkaysa kula taagsaday power coercion uu ku sameeyay dawladda uu ku macnaheedu abiyusay awoodeeda wixii oo dhan faylashiya la keenay marka haddii toddobaad gudihiisa jawaab uu soo dhiibi waayo geelle isaga ayaa maxkamadda caalamiga lala soo istaagaya isaga ayaa maxkamadda caalamiga ah maca dawladiisi weliga ma aragtay madaxweyne la dacweynayo waa aragtay laakiin dawladda la dacweynayaa jirta dawladdu nafsadeeda haday dictator noqoto wala dacweyn karaa horta geelihii niman reer Djiboutiyana helay ninkaas kaliyana ma xidhna waxa la xiran ma arkaysa rag shaqaale ahaa oo wasaaradda macnaheedu kala shaqeynayay wasaaradda miisaaniyadda kala shaqeynayay oo iyagana la iska misabitay oo masaakiin ah oo ma arkaysa shaqaale iska ahaa iyaguna baranbarada ayay macnaheedu la cunayaan oo gabood bay ku jiraan horta Ismaaciil Cumar Geele macnaheedu waa uu liqliqanaya ayaan dhaweydna waa tii Shiinaha ma arkaysa reer Yurub waa laga dacweeyay reer galbeedka Shiina ku badbaad uu isiri kaamirooyin uu ku xiray meel walba markii dambe xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka macnaheedu Aston uu meesha ka dagay uu yiri saaxiib kaamiradan fur kaama akhrisanayno kaamana yeelayno haye haddana Turkiya markii nabad iyo nolol Xasan ay qoorta u gelisay badii loo dhiibay badii uu dulaalayay waatii markii dambe Ismaaciil Cumar Geele maalintii xigtay isaguna Turkiga uu heshiis ayaan idin la galaa oo yiri isagoo raba in uu Turkida macnaheedu uu ogaado ciidamo iyo tababara yaani marinkii qowleysatada hubka uu marinayay ilaa iyo shabeellada hoose ilaa iyo Jubbooyinka ilaa iyo Baay ilaa iyo Hiiraan ilaa iyo shabeellada dhexe Geele inuu gacanta ku dhigu rabaa ma arkaysa dhul beereedkaasi inuu isaga la wareego sida qorshihiisa uu yahay macnaheedu beer isaga uu leeyahay inuu ka dhigto hal beer waa shabeellada dhexe waa Hiiraan waa shabeellada hoose waa Jubbooyinka Baay Bakool iyo Gedo dhulkan wuxuu rabaa inuu isagu macnaheedu hal beer uu leeyahay uu ka dhigto wuxuu rabo uu ka samaysto
siduu rabo uu ugu tasarrufo horta geelle sidaas waa dadka ma oga laakiin they don't understand most of them shabaabka isagaa soo hubeeya baddaasuu wax soo mariyaa daroogada iyo qamriga wixii ilaahay nacay oo dhanna isagaa shaqaale ka dhigta cabdikariin xuseen guuleed ha dhihin xasan sheekh maxamuud ha dhihin hadda ma fahmaysaa saadiq john ha dhihin ma arkaysa macnihi qusac bulaad oo dhan inta ilaahay nacay inta mooriyaanta ah inta ma arkaysa munaafiqiinta ah darakaadka naarta macnihi u sugnaatay waxaa weeye isaga bahalladuu urursadaa qashankuu urursadaa mooriyaantuu urursadaa jiriduu urursadaa cirada aabi iyo daba cadhowdaaba midna caafimaad mala weeye caynkaana waxaa lagu matalay odagii geelle hadda ma fahmaysaa isagoo candharay 90 jir qamriye cabas uu rabaa isaga wuxuu rabaa gawaaduu rabaa wax fayow maba rababa marka ismaaciil cumar geelle xaalkiisu waa sidaas dalka turkiga waxaa la sheegay inuu geeriyooday nin maqaayad meesha ku lahaa oo Soomaali ah baasaboor Kanadiyu haystay sida la sheegay waqooyiga Mareykanka ah ninkaasi Sharlaawe ayaa la yiraahdaa baa la igu dhahay aqoon gooniya uma lihi laakiin naftu waa sidaasi wadnaha istaagaa la yiri ninkan isagoo adeegtay sida la sheegay marka rabbiga ha u naxariisto annagana ilaahay ha noo wada naxariisto adduunyada qof walba oo isqaadqaadaya iyo qof walba oo isdejinaya mar walba waxa weeye safkii loo badnaa ayaa la marayaa marka walaalkaas isagana sidaas uu ku geeriyooday sida naloo sheegay waa uu dhintay marka haddii warka aan gadaal ugu noqdo dalka Djibouti geelle waa lagu dhagan yahay oo waxa weeye arintiisu UN-ka u gudubtay gabood falkii uu geystay dadkii Djiboutiyaanka ahaa ee xabsiyada gabood uu ku dhaashay xasan sheekh maxamuud safarkii Eritrea uu aaday waxa lagu yiri ciidankii hore aan ku siinay marka hore meel soo saar markaas kadib aan kula hadlaynaa that's why hadda markuu yimaaday cawada ciidamo cusub hal ii qoro uu yiri kuwii horena hal ii soo xaadiriyay Eritrea wixii ka nool si aan xisaab celin aan u gudbiyo ciidanka cusubna wuxuu doonayaa in uu ku qabsado saddexda maamul goboleed oo hadda doorashada ku heshiiyay in ay degdeg u qabsadaan sida Baydhabo sida Dhuusamareeb sida Kismaayo Axmed Madoobe lafta gareen iyo Qoorqoor xasan sheekh maxamuud sidoo kale aadan Madoobe salaan iyo kala tagay waa ku sheegay aadan Madoobe 180 oo iswareejiyay wuxuu yiri villa Soomaaliya madaxtooyada ha kala baxdo hay'adda sharci dejinta dastuurka dhamaystirkiisi waa shaqadeena wax ka bedel iyo wax ka bedel la'aan hawl u taala ma ahan villa Soomaaliya shaqadeedu ma ahan hay'adda sharci dejinta banaanka naga istaagto yiri mahad salaad isagana waxa lagu yiri saaxiibow habar qadiija soo dhaafin hadaa soo dhaaftid xabada ku taqaana horta xisaabta meeshaas ay maraysaa basrana ciidamadii Soomaaliya waa lagu gooyay maanta saraakiil macniya aan loogu talagalin in la dilo oo ciidamadaas inay geeyaan kadibna ay macniya ka soo baxaan oo dib aan loo arkin ciidamada ka shaqeynay ayay meesha ku qabsatay bahasha biimaal iyo digil iyo mirifle ku dhamaa haddana ciidanka lambar 50 laga qoray lambar 1 biimaal iyo digil iyo mirifla u badan goormay wax fahmi doonaan dadkan waayahay Soomaaliya haddaan u noqono marka u tira badan iyagoo leh macalinka lugeeyow haddaad ogeyd kaararka masaakiinta loo qaybinayo kaararka masaakiinta loogu qaybinayo deegaanada Maryland haddii dad Yurub iyo America joogaan aad ogeyd in ay ma arkaysa wax ka cunaan oo 10 iyo 20 war ma jiro wadaanta ceelka ku rid waay hadal waa la diiday Soomaali hadal waa la diiday laakiin mar baan aadi doonaa xagga iyo xasharaadka war lama ogolo waad u jeedaan fayraska sida uu taaka u yahay ha hadlin waa idaacadii gudaha waa la aamusiyay soo ma ogidin xogahan la dhiibayo dhibaataa ugu sugnaatay kuwa raba ummadda Soomaaliyeed in ay khatar galiyaan oo ay dhibaateeyaan marka si kasto ay ahaataba weerarka ugu badan laakiin xasharaadkan mar aadi doona wixii ku soo kordhay ayaan aadi doona xaajadu waa hadha waa ku noqon doona ma arkaysa hadalka su'aasha la isoo weydiiyay jawaabteeda waa ku noqon doona hadii Allah uu wadala uu ka raali noqdo
war meeshaan waa lagu go'ay saraakiil fara badan baaba'day waraan idin keenaya si kasta virus soo furan waxay rabaan soo sheegaan annagu waxaan u joognaa inaan ma arkaysa wararka aan idin soo tabino biidnillaahi baari waay walaalayaal dul yeesha insha Allah ta'ala wixii xaaladda macnaheedu hadda ku soo kordhay yep okay thank you hey si kasta ay ahaataba marka macalinka lugeeyo waxay ugu dhaheen haddaad ogeyd dadkan Europe iyo America jooga annaga Europe iyo America dadka naga jooga inayna soo kaalmeeyaan aan sugaynay laakiin ma arkaysa haddaad ogeyd in kaarar 10 iyo 20 masaakiinta wixooda loo xiraayo maxaa nooga qarisay dhaheen maxaa mar hore noogu sheegi weyday ha hadda ma arkaysa salaad waqtigeeda la tukadaa jawaabteedu waa sidaas salaada waqtigeeda la tukadaa haddaan idin sheegay sideeda ahaanba dadka Soomaaliya naga joogo hal mid aan rabaa inaan idin sheego awada iga barta dadka Europe iyo America idinka jooga aniga aqoontaydi oo digil iyo miriflaha u dhashay Soomaalida kale ma sheegayo haddii contribution la yiraahdo wax dhiibid haddii la yiraahdo gargaarid haddii la yiraahdo wax siin haddii la yiraahdo ya anigu waxaan 7 ama 8 ka badnayn ayaan garanayaa inta kale waxaan ku sheegayaa booto isqaadqaad af laakiin maalinta gacan ay timaado waxa la dhiibo way dhuumanayaan magacyadooda aan ku sheegaa maanta waxba qarin maayo gabar la yiraahdo Xaliimo Jeylaani lambar 1 waay keen haddii la yiraahdo dadaa wax la caawin waxba la qaban ilaahay dartiisi biya la dhaamin dad baa lagu gargaari qof baa buro looga soo saari ma hadlaysaan ku dhahay imisa la igu soo qoray bay ku dhahay bas $500 $1,000 $2,000 $3,000 $5,000 bagaato gabar la yiraahdo Xaliimo Jeylaani qaaraan meelo badan aan isugu imaanay gabadhaasi macnaheedu yaa loo diraa iyo yaa la siiyaa iyo gobolkeen loo wadaa iyo degmadeen loo wadaa iyo digil ma la siiyaa iyo mirifla ma la siiyaa ma taqaano biyo maal ma la siiyaa ma taqaano soo dhiib way dhiibayada gabadhaasi horta Soomaalida waxaan rabaa in macnaheedu adduunkan nool nahay qofku wuxuu yahay in la sheego waxna aan loogu darin waxna aan la reebin gabadha la Xaliimo Jeylaani ma haysataa waxa ku darsataa nin la yiraahdo Axmed Olol wiil la yiraahdo Axmed Olol ninkii macnaheedu war waxaas hadaa tiraadid bagaato war ma ka keeno hadda kama hadlaayo waa ballan qaadaya waa ka baxaya ma sheegayo hadda ma fahmaysaa waa ballan qaadaya waa ka baxaya ma sheegayo gacan saar bagaato laba wadagaysa Soomaan digli mirflaan u sheega caaw dadka ku kadsoomina gabar la yiraahdo Muslimo Mukhtaar oo aan u malaynayo Mareykanka inay joogto aqoon gaar ah uma lihi gabadhaasi digli iyo miriflaha ah action speaks louder than words gabar kale aad jirta gabar la yiraahdo Fartuun Ibrahim afar ma iga haysaa intaas lagu soo qoray neef hataa ma celiso neef meeqa iyo bil ma dhawa iyo half iyo no farasar xageen ku diraa bas ay ku leedahay xageen ku diraa adima ku dhiibaa ani weliga wax ma aruurin laakiin waxba macni dadka aruurinayaan goobjoog u ahaa ma haysaa ninka shanaad nin la yiraahdo Yaasiin Abikar oo Kanada jooga oo wariye ah Yaasiin Abikar haddaad aragto waa a man of reality qof runta u nool waay iska daba wareeg ma yaqaano intaan ku shubaa goormeen bixinaa xagee lagu dhiibaa bas shan ma igaysaa okay waxaa ku darsataa nin la yiraahdo Maaxiye Cabdinuur Yuusuf waxaa la dhiibaa hadii la dhiibaa isaga waxaa ku darsataa nin la yiraahdo Mukhtaar Garaar hadalkana wuu yaqaanaa dhiibidina wuu yaqaanaa Mukhtaar Garaar kan sideedaad qurba ma joogo aqoontaydii Soomaaliya jooga isagoo Sacuudiga jooga Sacuudiga xaalkiisu Allah macnaheedu Ilaahay og yahay Cabdullaahi Caraale ayaa la
saas u bagaateen jira saas aniga intaan aqaano waay aniga xataa iga saar waa gacan adkaay aniga macallinka lugeeyaha xataa iga bixi dadka gacanta adagaan ku jiraa laakiin digli iyo mirifle waxaan rabaa inaan sheego 8daasi qofood intaan aqoon u leeyahay marka laga reebo dadka dibad iyo dalka joogow dadka dibaddan wax ka sugaynaa ay leedihiin inta kale show off istustus ostentation ha lagaa sheego ma arkaysa macnihii ku shukaanso macnihii gabdhihii ayba ku shukaansanayaan ama iyagii aaba wax shukaansan amaba wixii waan ururinaynaa intay dhahaan iyagaaba ku dagaayo cunaayo aniga gudaha kama sheekaynayo waxaan ka sheekaynaya dadkeena dibadda jooga aniga intaan aqoon u leeyahay qof walba isqaadqaad faanfaan dhar fiican xiro dadka u bootee yah waxaan ilaahay dartii loo yeelin istustus xagga iska dhig adig runta markay timaado bixin markay timaado hebel baa sariir saaran xabad ku taallaa daweyn buu rabaa gabadhaasaa dhiig ka socdaa waxay u baahan tahay dhiig degdega in lagu shugo waxay u baahan tahay lacag degdega in dawo loogu gado dhakhtar bay saaran tahay gargaar degdeg ah bagaatayn haddii la yidhaahdo 8daasi qofood aan aqaan aniga inta aan ku dhex jiray hawshaan inta kale yah booto inta aan la gaarin 5,000 aan dhiibayaa 10,000 aan dhiibayaa 2,000 $1,000 miiska bal marka waxa la qaaraamo la dhaho iyagaa kaaga horeeya iyagaaba kuu keenayo waxay ku dhahayaan lamber 1 iyagaa waxay ku dhahayaan ma arkaysa hebel waxa loo qaaraamo iyagaa ku dhahaya iyagii oo kuu keenay haddaad tirahdid haye soo boodbood aniga taydii waatan heblaayo taydii waatan soo boodbood maba ogide mala arkaayo horta ma arkaysa dadka gudaha joogow intaasaan idiin sheegi lahaa ugu darnaan ma ahan ku xumays ma ahan xaqiiqo waay adiga ma been inaad lagugu maaweeliyaa rabtaa ka waran haddii lagu dhaho lacagaan kuu soo diraynaa adoo macnihii lacag isu diyaariyey dayn sii qaatay lacagaa ii soo socota haddaad tirahdid haddii teleefoonkaba lagaa qaban waayo way dhacday hadda ogow way dhacday hadda ogow hadda ma fahmaysaa nuucaasay u badan yihiin dadka baraha bulshada ku jira bal adinka dhiiggiinni kaararkiinayba irsaaqad ka soo raadiyeen iyagoo Yurub iyo America jooga kuwii la rabay